بسم الله الرحمن الرحيم وحايا اندرا إن كنا ودن ورينمada ay tahay dambi يعني ودن loo aqoonsan yahay qofka wariyaha wax kasto uu qoro inuu yahay wax uu ku dambaabay ama uu madax ugu gafayo in wax la qoro warna la sheego waxa qoraya dastuurka waxana u ogol qof walba in uu wax wixii uu arko ama maqlo ee sax uu gudbiyo abuuja waxa uu kamid yahay wariyaasha Soomaaliyeed ee wax ka qora warbaahinta iyo dhacdooyinka dhaca waxaan u arkaa xariga abuuja in marka hore uu ahaa sharci darro sababtoo ah isaga oo aan la eedayn warqad maxkamad la haysan ayaa la xiray saddex mar ayaa la xiray xarigiisa mar kamida lugta laga jibiyay godka jilicow oo la sheegay inuu in la joojiyay oo aan qof lagu xiri karin xaalad bini aadanimo markii la arkayna waa ku xiran yahay waxaan u arkaa in abuuja lagu haysto cadaalad darro haddii ay dawladda ama dadka xirtay ay u arkaan in abuuja uu yahay dambi leeyahay waxaan codsanaynaa in maxkamad la keeno oo cadaalad uu helo abuuja iyo inta la midka ah ee xaq darrada haysana waxaan leeyahay ilaahay cadaalad ha siiyo waxaan aaminsanahay aniga shakhsiyan ka shaasha ahaan abuuja haddii uu ka dhalan lahaa reeraha afarta ah ee Soomaaliya maanta ku boodbooda inuusan saacado xirnaan lahayn wallaahi oo billaahi oo tallaahi abuuja inuusan saacado xirnaan lahayn dhowr iyo 40 maalmood wuxuu u xiran yahay adoo reerkaasa miyaa intaad wariyo noqotay haddana warka noocaas sheegi kartaa waana ayaan darro waxaan ha laga waantoobo wadanka ha loo sinaado cadaaladda ha la qaato abuujana haddii aad dambi ku haysaan maxkamad horkeena haddaadan ku hayninna war annaga raalli ku sidiisa ku soo daaya waan ogeyn cidaad xirateen inaadan raalli gelin ka bixinin oo qowli hada